xabsi maraykan ka mid a lagu xiray wiil dhalinyaro oo tahriib u ahaa oo wax walba xataa faa'iiday leeyihiin ma ogtahay shay kasta xataa tahriibki dhibaatuu leeyahay iyo geeri anuu socdaalka geeridan u bixiyey laakiin isaga laftigiisa musiibo kasta waxaa ku jira xoogaa nafacyaabaa ku jira culimadu waxay dhahaan shar maxdiya ilaahay ma abuurin shar maxdiya ilaahay baa ma abuurin ee waxa weeye shar kasta khayr baa ku jira xubin baa ku jirta nafaca yar laakiin nafcu ku jira ama khayr kastoo badanna waxyaalo shar ku jira marka wuxuu yidhi xabsi meel baa laygu xiray xuduudda maraykanka iyo mexico tahriibkiisa halkaanu ka tahriibay soomaaliya ku tahriibay intaas waa socday waxaan maray buu yihi 13 wadan oo latin america oo ugu yaraan 3 jeer nafta aan ka quustay waana indhan yaraa almuhim xuduudii markii lagu xiray ramadaan baa meesha noogu soo galay xabsiga xoogaa dhowr waxaan nahay muslimiina meel baan ku wada afurnaa salaadaan ku tukanaa marka sariiraha saan isu saarsaaran oo xabsiga safan baa jira sariirta aniga aan ku jiifo dhinaceeda mid ah laba isa saaran midda hoosaan ku jiifaayo isna mid hoose ku jiifa nin kaleeto oo kuuriya marka ninkii galabtii markii ay casarkii tahay ayaan kitaabka qur-aankan soo qaataa sariirteeda korkeeda gacantooda waan iskaga akhristaa casarka ilaa maqrib afurka laga gaarayo baan qur-aanka iska akhristaa ninkan wuu arkaa qur-aanka markaa akhrinayo waa gaal kuuriyaan ah wuxuu bilaabay galabtii dambe intuu soo qaato shukumaan ama tawaal maxaa u taqaanaan ya tawal baa u taqaanaan shukumaan baa u taqaanaan waxaa u taqaanaan kan markii la qubaysto la isku qallajiyo ya kaasuu intuu madaxa saa u saarto oo gab isku siiyo ya sida islaam bukhuursanaysa oo kale ayuu qur-aan ku dhegeysanaya saasuu iyo dul fadhiya markaan qur-aanka akhrinayo saasuu isu saara ana qur-aan kor baan u akhrinayaa haddaan joojiyo istaago maradu iska qaada maxaa dhacay maxaa u joojisay oo maxaa ka fahmaysaa waxaan akhrinayo ma fahmaya akhri warmajin baa ku jira oo ninku ka cuudinaya oo ka akrinaya way jiraan jinku waa iska saaran yahay gaal moogta gaal jin baa iska shaydaan baa iska saaran ya shaydaan waa iska saaran yahay oo laga yaabaa qur-aankaasi marka ku wuxuu yahay waryaa akhri haye waaye markaan wado maradiisu isa saari gab u dhegeysan maalin walba saasuu sameeyaa dambaan waxaa erib niyo waxaan akhrinayo ma taqaana maya luqaddaan ku akhrinayo ma garanaysaa maya maxay tahay waa qur'aan baan ku iri maxaan akrinaya qur'aan weligaa ma maqasha maya islaam ma maqasha ha islaam waa maqlay tifiyada iyo journaalada meelaha ku arkay kitaabka islaamka wey diintooda hay oo luqadee wey waa luqa carabiya luqada carabiga ma taqaan ha carabtan lacagta iyo betrool kale soo ma luqa carabiya luqadooda luqadaas adigu ninkii saaxiib baan noqonay galab walba akhriya wuxuu dhahaa niyo anugu ma garanaayo wuxuu yahay luqaduu yahay iyo wuxuu yahay laakiin marka aad akhrinayso waxaan dareemaa raaxo waxaan dareemaa qabow madaxa tintiisa laga soo bilaabo ilaa ciribta anigoo dhan waxaad moodaa biyo barafa oo qabow in laygu shubo stresskii iyo fikirkii iyo wixii ihayay oo dhan qabow deganaan baan dareemaa bixasuli baan dareemaa marka ii wad niyo qur-aanka ha ii diidin adugu ninkii sidii aan u akrinayn waxaan bilaabay wiilkaan isagu xataa nin daaci ma ahado yani qur-aan iyo diin waxaas wax badan soo bartay xoogaadii si yartaayo dee
waxay soomaalida ilaahay subxana wataala ugu galadeeyey badanaaba dee cunug walba dugsiga waa la geeyaa qur-aanka uu bartaa iyo higaada waxyaalaha ummadda islaamka ay ku fahamtay qur-aankii baan sidii ugu akrin jiray buu yihi ninkii inaan u bilaabay inaan u sheego qur-aanku wuxuu yahay akhirku wuxuu yihi aduu 20 cisho meelahaas markii aan meeshaa wada deganayn mise bil ramadaankii dhammaaday wuxuu ugu yihi inaan soo galaan rabaa diintan see ku soo galaa si aan waxaan macaankan si aan u helo niyo uu igu soo socdo bas waxaan ku yidhi buu yihi soo qubaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waa oranaysaa waa qubaysanaysaa sida yadaa u tukanaysaa waa dhammaatay haye diyaar baan ahay soo qubayso soo qubaysta war ninkii tahriibkaa nin buu islaaminayaa muu jeeda meesha ilaahay nicmo ka siiyey nebigu alay slam an yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumuri nacam qofbaa waxaa laga yaabaa muslimiinta inuu saan u dhex joogo intaasoo sano kenya hadda idinka dhex joogtaan weligiisna aan hol qof islaamin baa dhici karta sababtiis ku islaamay kaas intaasoo xuduudoodu maray waxaan ihi malaha ninkaasaa laguu soo dirayay adiga ilaahay khayrka la maagay ninkii wuxuu yihi soo qubaysaa shahaadadan u qabtay waa islaamiyey qur-aankii baan u bilaabay iyo higaadii iyo alif iyo baadi faatixadan u bilaabay wuxuu yihi faatixada markaan u akrinaayo wuxuu ku qortaa afkiisa kuuriyaanka ah afka chineska u aragteen iyo kuuriya iyo oo la xardhaayo sida loo xardha waxaasuu ku xardhadaa alxamdu lilaahi oo afkiisa ah alxamdu kor bay ku qoran tahay hoosna wuxuu ku xardhadaa afkiisa si uu u ilaaliyo nudqiga kelimadda alxamdu ya wuxuu ku qoraa afkiisa faatixado dhan buu saa ku qortay qul huwa allah akhriye qul acuudu birabbi الnaas qul acuudu birabbi اlfalaq akhriye sidaasoo kale ugu qortay buug dhan oo intuu qaatay buu wuxuu ku qorayaa marka wuxuu yihi maantoo dhan caawoo dhan wuxuu ku celcelinayaa faatixada waana dhegaysanayaa waxaan siiyey cajaladii baahnayn laga dhegaysanaya markaasuu woo dhegaystaa waana qoraa waana akhriyaa maalintii dambe 1000 jeer buu ku celinaya caaw 1000 jeer buu ku celcelinayaa faatixada markii dambe anigu iga badiyey faatixadii cabdulbaasit buu ka dhegaysanayaa minshaawi buu ka dhegaysanaya anigu iga badiyaaba qul acuudu birabbi اlfalaq qul acuudu birabbi الnaas mucaawadateenkii war adigu ninkii sidaa maalin walba saa suurad ugu waday 5 yani 100 jeer mid walba ku celinaya oo perfect u keenay akhriskeedii salaadii aan wada tukano maaragtay sheekhiisii baan ahayo agtayda xabsiga lagama soo dhowaan karo gaalo kaleeto iyo kuwo kaleeto oo dad badan mujrimiin ah ku jira halkaas qofkii iga soo dhawaada ya shaahiga caanaha biyaha waxaa alaabta ii keenay ya waa karaamada dacwada sooma wii khidmayna xulay macallinkayga agtiisa qofkii yimaada ilkaan ka ridaya agtiisa wuxuu soo dhawaada ninkii markii aan saa ku jirnay 2 bilood meesha ku wada jirnay cinwaankii baan ka qortay teleefonkii baan ka qortay maxaan kuu sheegay adreskii baan ka qortay waa la kaxeeyo isagoo waa la dhoofiyey waa la mashaakil badan oo wuxuu yihi niyo aniga aan kusoo nool waddankan 10 sanaan joogay sharci ma lahayn waa laysoo qabtay naagtii nin kale iska raacday markii aan la xiray xoolihii waa la tagtay ya makhaayid iyo waxbaan lahaa wixii way qaadatay xoolihii waa iga dhumeen naagtii waa iga tagtay xabsi baa laga geliyey sharci daraa laga dhoofinayaa waxaygii waxaasoo dhan oo maskaxda hadda laakiin wuxuu yihi hadda farxadda iyo nicmada iyo khayrka aan ku noolahay ma cabiri karo mana sheegi karo xataa awalna waxaan ku noolaa jaxiim iyo cadaab baan ku noolaa inaan dhibanayo oo kale maalin walba waa macaanka islaamka waa tii uu rabay nebigu alayh slat slam ninkaan inuu qalbigiisa geliyo laakiin ilaahay uma qadarin laakiin way saamaysay markay ugu badan tahay way saamaysay una aamusay shib buu yihi ninkii sidii ugu dhoofay waxaan ka xumahay buu yihi oo aan markuu sheekadii iga sheekeynayey aan ka qoomameeyaa waraaqdii iyo adreskii baa iga lumay xabsigii ninkii meel aan ka raadiyo iyo meel aan u doono isna kuuriyaa laga tuuray waadi ya maxaad ka haysaa ninkii magaciisa un baan hayaa kim qisaan ka qoray markaan buuggayga sheekooyinka ya
kiim yaa arkay aan u bixiyey kiim yaa arkay ya qofka kaatibka ah oo wax qora waxaa weeye sheekada isagu boqolaal qofuu u sheegay soomaali uga sheekeeyey si caadiya aniga laakiin markuu iiga sheekeeyey waxaan arkay qiso istaahisho in la qoro inay tahay marka waan qoray waana nashriyey medyadana markii hore waan ku nashriyey kadibna buuggaan ku qoray waxaan ka wadaa marka sheekada qur-aanka kariimka ah oo aynu hayno nebigu calayh salatu salaam wuxuu leeyahay kitaabkan akhrista oo badsada intaan dhulka laga qaadin akhri zamanka dhulka waa laga qaadaya hal xaraf dhulka ma awlaay ma aha musxaf hal xaraf dhulka ma laga maahla akhru zamanka waa la qaadi salaadana nebigu calayh salatu salaam wuxuu leeyahay ku raaxaysta inta ay idinla taalo agtiina ay taalo iyadoo kana laga fahmayo akhri zamankana in la weynaayo laakiin ama wax idin kala dhex galaan الصلاaة khayru mawduuci marka qur'aanka iyo salaada waa waxa ugu wanaagsan oo istiqaamada iyo ku sugnaanta wadada ilaahay ugu fiican oo kugu sugan waaye labadaas dardaaran baan idin xusuusinaya ilaahay subxaanaه wa tacaalana waxaan ka baryayaa inuu nagu sugo wadadiisa iyo jidkiisa toosan iyo nicmada islaamka ilaahayna siiyey dhalinyaroy iyo odayaalo inaynu ku faraxno qul bifadli اllaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmac isla mar ahaantaasna ducaad aynu u noqono oo dadka ugu yeelno dad baa idiin shaqeeya aan muslin ahayn waxaad haysataan wixii idinku ugu qiimo badnaa adduunka wax ugu qiimo badnaa ma tihid faqiir wixii ugu qiimo badnaa baad haysataa oo ah iimaanka oo ah qur'aanka kariimka adduunka oo dhan baa u baahan waxa aynu inagu hayno adduunka oo dhan baa maanta u ooman maahayna inagu umanahay iyagaa inooga oomanaan badan adduunka kale ee yurub iyo america iyo aasiya waxa aynu hayno ee macaankiisa aynu dardaminayno ayay u baahan yihiin